galmudug macno leh waxaan u taaganahay galmudug dhalinyaradeeda shaqo u abuur waxaan u taaganahay galmudug aqoonta hoggaamiso waxaan u taaganahay galmudug dowladda federaalkana saaxiib la ah dhuusan reebna degan uma taagni galmudug xalaalaysi wax la yidhaha maqasheen Soomaaliya 45 beri xamar inta ku soo nasto qofka uu yimaado waxaan idin ballan qaadayaa hadaba aan fursad u helo inaan madaxweyne idin noqdo inay noqoto meesha lagu nasto dhuusan reeb galmudug waxay u baahan tahay madaxweyne karti leh qofkan kartida lahayn xataa waxa loo ogol yahay ma isticmaali karo under capacity qof markuu awood lahayn waxa loo ogol yahay ma isticmaali karo waxa ka war haysaan dad badan oo shaqeeya jira miisaaniyada la dejiyaa sanadka dad badan hay'ado badan oo miisaaniyadooda isticmaalina jira sababtoo ah awoodooda fulintooda tacbaan مثال إنسانا مالين دويت دولة فدرالك وزير كمالية هشيس بوس هاي هرمرت الدولة ده هوسه أو العقل جوسي ديني أو بنتلان يو توبلان يو كفر البيت العقل جوسي كثير شباب يجي المدن على محسن كثير استاندر سواي بول بنك وحورب بول بنك وحورب هذا أقوم ولا هين يكرتي أو ده أبي فكر إن ده كرتي ده لها العكس بول بنك يطلع عليه وكور هيتان لبدي الدولة قبلت هذا هيرشبيلي يقلمدونا معارض معها دولة لبدي معارض كو أنا اللي باحوا قولوا هذا العكل وجي أحمد مذوب يدني ما أتحنا هذا كلا هي دولة كلا ما دحين قولوا هذا العكل وجي سببته حتى كباسيتي لي أنا قاعد أجرب تين إن كباسيتي ندرس أودي ندرس دولة وزارة السيين civil service ku dhisan yahay maaliyadeedu dhisan tahay xisaab celin samaysa inaan dhistaa laga rabo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda juhdiga ay meeshan ku soo bixisay mira dhalkiisa aan ku sheegaya mira dhalkiisa waxa weeye madaxweyne xaafo gaalkacyo fadhiya oo baarlamaan dhisay oo shaqo wata oo halkaas jooga asaga iyo dad badan oo halkan ka caroodanay isla joogaan maamulka ahlu sunna wal jamaa oo halkan ayaga dhuusan reeb qayb kamid ah fadhiya oo 20 xildhibaan iyo intii kale ayaga hadda raadsanayaan ayaga u talaahay jooga oo aan qayb ka ahayn baarlamaanka intiisa kale iyo xukuumadda dhisatay oo ayadana meel joogto murashaxiinteennii ugu tun weyneed mucaaradka oo ayagana meel jooga oo le waxaas la qooshay raallina ka maniin mana ogoli afar galmudug ay maraysaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu u yimid hal galmudug oo xaaf hogaamiye ما أوجد دري بس هو أوجد رأي سؤال اسمه على رأينا هذا كجواب ميديو ما قال إن سؤال لو يديه هاي قلت أنا جا حاسستا ده بدن أو ميديا سوقلا أو يرى هذا قلمدو مده على لسه ودوا قلمدو يروح على هذا كل لسه ودوا أنا جا إلهي أمريكا أنا أمانة هذا مجال كله لكن أنا نكرمه هذا وحنا أوجدي أنت كلو ده أنا سؤال حلي هل حب عايزة أقدم عليه nimankii dawladda haystay oo waxaad ogeed haystay ayadda ma aniga meesha xaaf ka bilaabo ma meesha aniga ka bilaabo ma afar xabay u celshay galmudug afar meel ku kala hoyanaysa caawa jirta marka waxaan rabaa xageen ka aadayna meesha aniga waxaan ka mid ahay dadka nabdoonada ah ee aaminsan in dawladana lala noolaan karo karaamadan la ilaashan karo federalismka waxa loo sameeyay in dadka dawladda laba level ay yeelato level waa levelka federaalka ah oo xamar ka taliya waajibaad iyo wuxuu leeyahay xuquuq levelna waa levelka dawlad goboleedka waajibaad iyo xuquuq uu leeyahay horta waxaan rabaa inaan idiin sheego dastuurka haddaad akhriseen iyo haddii kaleba qodobada 48 49 konton 51 52 53 54 yaa waxay ka hadlayaan dawlad goboleedyada iyo dawladda xiriirka ka dhaxeeya iyo xuquuqda mid walba leeyahay qodobka 54 aan rabaa marka inaan idiin sheego awoodaha heer federaal ay leedahay dawladda federaalka koow waa arrimaha dibadda laba waa difaaca qaranka oo militariga u dhigmo saddex waa jinsiyadaha afar waa lacagta siyaasadda lacagta lagu sameeyo horta afartaas cabdiraxmaan cudowaa oo dawladda federaalka afartaas mid kamid ku haysta haddaad aragtaan anigaa gardaran haddii afartaas laga soo tago dawladda goboleedku inta ka soo harta ayadaa leh booliiska dawlad goboleedka amniga dawlad goboleedka waxbarashada dawlad goboleedka caafimaadka dawlad goboleedka
laakiin waxa aniga xaq ugu leeyahay inaan dowladda federaalka miisaaniyadda inteeda badan soo martaa inaan kala shaqeeyo labadaas marka dadku waxay aad u kala fahmi leeyihiin dowladda iyo yaa dadka oo la macaamilaya yaa gardaran haddii marka mararka qaar dowladdu la arko ayadoo dhuusamareeb ila maamulaysa oo rabta taliyaha booliiska degmada dhuusamareeb inay soo magacaawdo xamar ka soo magacaawdo markaas ayadaa iga gardaran soo maaha marka waxaa la rabaa always maaha qaladku inuu hal dhinac jiro maaha wada shaqayn la-aantu labada dhinacba waa ka imaan karta lagu ammaano waxaa ka mid ah dad iska soo horjeeda uu maamuli jiray team of rivals aa la yidhaha buu uu leeyahay laga qoray tiimkiisu wuxuu ahaa team of rivals warniya aniga waxaan aaminsanahay inaan ahay ninka keliya ee isku hayn kara madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo wixiisa oo dhinaca mucaaradkii oo dhinac kala maaragtay culamaa udiinka iyo madaxweyne xaaf iyo dhinaca qabaa'ilka iyo dadka degan oo dhinaca waxaasoo dhan ninka u odayeyn lahaa oo isu keeni lahaa oo galmudug jidka ku shubi lahaa inaan aan aaminsanahay laakiin xataa waxaan ku hubinaya aniga nin team work ku fiicanaan soomaalinimadana nin ku fiicanaan nin wax in la kala gooyo jecel maayo waxa in la isla haysto oo adigana aad dhinac uga fadhido anaan dhinac uga fadhido oo isla joogno marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli waxa u sheegaya ha iska kay iimaansadaan dadka reer galmudug meeshay taageeradooda u badan tahay marka anna waxaan ballan qaadayaa cabsidoodaas inaan xalliyo oo aan galmudug iyo dowladda kala raaracda aan la dhihin